madaxweyne ku-xigeenka Somaliland iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo oo ay qayb ka hayeen wasiirada wasaaradaha howlaha guud caafimaadka iyo wasiir ku-xigeenada wasaaradaha waxbarashada arrimaha gudaha qorsheynta iyo gaadiidka ayaa Sabtida 14 Disembar safar shaqo ku soo gaaray magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal waxaana ujeedadiisu ahay sida uu indheyn laayeen isla markaasina uu kormeeri laayeen mashruuca GPLG ee dowladda hoose ee degmada Boorame sida uga fulisay magaalada Boorama wafdiga madaxweyne ku-xigeenka Somaliland ayaa xadhiga ka jaray mashaariic horumarineed oo dowladda hoose ee degmada Boorama ay ka hirgelisay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal intaasi kadib wafdiga madaxweyne ku-xigeenka ayaa isugu soo biyashubtay halkan oo howlka dowladda hoose ee degmada Boorama waxaana goobjoog ahaa madax ka socotay xafiiska championka xildhibaano madax dhaqameed iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay xogeyaha fulinta dowladda hoose ee degmada Boorama mudane xasan yuusuf riiraash mudane saleebaan xasan xadi maayirka magaalada Boorama iyo gudoomiyaha gobolka Awdal mudane cabdiraxmaan axmed cali hawsha loo socdo horta Boorama waan ku soo dhaweynayaa hawsha kale loo socdo ee mashaariicda kulli mashaariicda warbixinteeda waana la arki doonaa kan iyadoo video soo dhigi doonaa iyadoo meel walba waan geyn doonaa madaxweynaha iyo waftigiisaba waxaan leenahay ku soo dhow magaalada Boorama waxaan leenahay hawshaadu socoto wax qabadkeega insha Allah waad arki doontaa waxa farxad noo amaanta hadii anagoo nabad qabna jawiguna wanaagsan yahay waftiginala waa bariistay oo ay saaka ku sugan yihiin howlka dawladda hoose iyagoo u socda hawlgalkii lagu qiimeynayay wax qabadka dawladda hoose ama GPLG-ga kaasoo gobolada bariga lagu horeeyay runtii waxaan ugu talagalnay maqal iyo muuqaal labadaba inaan ku tusnoon maqalka horeysiino muuqaalkana la garab istaago oo la yiraahdo wixii aynu taabanno wixii la qabtay la nagu tusay hoolka waa inaanu taabanno marka waan soo dhaweynaa wax qabadka dhacayna wixii aan joognayna waan sheegi doonaa waan istul taagi doonaa wixii imika la furayayna halkan lagu qabtayba contractorski lagu siiyay oo ay ku kala guuleysteen halka traktor baa ku guuleystay labadii jid wasiir ku-xigeenada wasaaradaha arrimaha gudaha waxbarashada iyo wasiirka caafimaadka iyo wasiirka howlaha guud oo hadalka iska daba qaatay ayaa waxay yiraahdeen anaguna waxaan u soconay waxay haydoon indhayntahay wixii la qabtay iyo wax la qaban doono si loo dardar gelin lahaa kulay waxaan ay qabteen degmooyinku wax ka badan baa laga rabaa inay qabtaan oo mashruucan GPLG-gu inuu baxo dadka tuuliyaasha banaanka ay horta aad ugu fiicnaan lahayd anu saan isleeyahay ama laga rabaaba oo degmada gudaheedu ay waxay cashuurta dad ka qaado ay isku filaysiiso degmooyinka banaanka ay u saarto ayaa kulli inay sanadka waliba ku darsadaan ku bilaabaan ma jeclay inta mashruucan amba kormeerkan waxaanu ka bilownay magaalada Birbira Burca ku xigtay Oodweyne Boorama waa tii afraad dhammaanba sida maayirkaas waxaanu maayir walba u hadlay maayir walbana wuxuu sheegay qorshihiisu wuxuu yahay sanadka soo socda oo kaleera kolka horta dhammaantood boorta ilaahay la qabto ha fududeeyo maxay qorshahooga arintaas waa guul waxaanu aaminsanahay oo la qaba in saameyntii ay ka hadlayeen oo ama ha noqoto in adeeg caafimaadka la fidiyo ama ha noqoto in adeeg cusub lagu daro ama ha noqoto in dadka ka shaqeynaya adeeg caafimaadka la siiyo gunno si ay u dhiiradaan waxaan aaminsanahay arintaas marka la isku wada geeyay inay guul noo tahay dadka baran degan iyo dadka laascaano degan iyo dadka buuhood la degan ee soo guuray ee Boorama degan haddii la tiriyo cid tirin kartaa ma jirto wixii keenayna waad garanaysaan in reer baraneed iyo reer buuhoodle iyo reer laascaanood soo guuraan oo halkan ay degaan waxa keenay waad garanaysaan waa horumarka Boorama yaalla waa nabadda taalla waa aqoonta taalla injineer cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici madaxweyne ku-xigeenka Somaliland oo ugu dambeyn halkaasi ka hadlay ayaa dowladda hoose ee degmada Boorama ku ammaanay runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ilaa inta degmada soo marnay in aan isleenahay wixii laga doonayay 80% bay gaadheen dadku degmooyinka si doonaa u kala horeeyaan dowladda hoose Boorama runtii aad baan waynu ka dhageysanay isbedelku ka muuqdaa laakiin maanta waxay ay adeegan faa'iido keenay maamul daadejintu in degmadii marka ay kolkaaba ay gaadho oo iyadoo ay maartay dhibaatada dhacday wax ka qabato
dabayshii waxay dhibaatay geystay markaaba ay bedesho. Cabdirasaaq Cumar Macadowliyo telefishanka codka bariga Afrika Boorama.